asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan janaalkan bayjoog oon samayna daqiiqada ka hor ayaa waxaan idiin sheegaynaa janaalkan inaan hadda kadib uga hadli doono musalsalada, maadaama musalsaladu bateen janaalkeena kale ee musalsal daraamana aan u bedelnay filmaan. janaalkan labaad ayaan u sameynay dhankaas iyo musalsalada. haddaba fadlan haddii ay tahay markii koobaad eed soo booqatay janaalka bayjoog, janaalka subscribe saar, sidoo kale la wadaag asxaabta Khari Drama ama asxaabahaaga kaleba si ogaadaan in aan furanay janaal labaad oo musalsalada ku falanqeynayno. haddaba muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa musalsalka dhaawacay qalbiga, dhimashada Yamaan Marunba. haddaba saan wada ognahayba xalqadii u dambeysay Yamaan runtii shil ayuu galay, qof shilkaasi u geystayna lama garanayo. halka looga sheegsan yahay qofka shilka u geystay in ay tahay xaaskiisa, halka dadka qaarina ay leeyihiin qofka shilka u geystay waxaa weeye Azade Sanjaqzade. adiga ahaan yay kula tahay Yamaan qofka shilka u geystay xilligaas? haddaba sida loo badinayo Yamaan waa u macasalaamaynayaa, sababtoo ah Yamaan anaga markii kood mana ku tilmaamin dhimasho iyo shilkii u gaadhay wax dhimasho amana ku tilmaamin, laakiin ayaga ayaa markii xalqada 24 ay soo dhigayeen ku soo qoray Yamaan muu dhintay miyaa, micnaha fiidiyowi ama 50 second oo fiideo ah intay soo jareen iyo janaalka kalbiyarasi ama janaalkooda rasmiga ee YouTube ay ku soo qorteen Yamaan hadda muu dhintay. taasina waxayna shaki gelisay inuu Yamaan dhimanayo iyo in kale. haddaba kolley xalqad soo socota ayaan ogaan doonaa wax walba oo arrinkaasi ka jira. haddaba waxaan idiin sheegnaa asxaabta qiimaha badan ee ku xiran janaalkan bayjoog taxanaha dhaawacii qalbiga in uu dhammaanayo xalqadiisa 33aad. dhaawacii qalbiga 33 waa uu dhammaan doonaa, sababtoo ah taxanuhu runtii ratingkiisu waa uu hooseeyey. waagii hore kaalinta 7 ayuu ku jiri jiray meelahaas, laakiin hadda 20-yada iyo meelo aan loo jeedin ayuu ku jiraa. taxanahana waxaa la filayaa season labaad in dib looga soo sameeyo oo season labaad la sii wado. saa darteed marka taxanaha waa uu dhammaanayaa oo kalbiyarasi waxuu ku dhammaan doonaa 33, halka la filayo season labaad inuu imaato. haddaba sidoo kale waxaan idiin sheegaynaa hadda 24 ayaan maraynaa, xalqada 26 waxaana maxasalaameyn doonaa ama dhiman doonaa odayga Cadnaan ah ee Fariid aabihiisa. haddaba Fariid maxuu samayn doonaa marka uu ogaado Yamaan inuu walaalkiisa yahay? ma laga yaabaa inuu cafiyo, mase laga yaabaa inay cadaawadoodu sii socoto? haddaba Yamaan qofka caawin doona ama ee dhakhtarka kula jiri doona yuu noqon doonaa? Fariid ma laga yaabaa inuu u imaado walaalkiisana uu cafiyo? Azade maxay ku samayn doontaa Yamaan markii uu ogaatay inuu yahay wiilka Faraya? ma laga yaabaa in isku daydo in ay disho? gooskooska labaad ee xalqada 25 ayaan caawa insha Allah sugaynaa. gooskooskaasi ayaan wax walba ogaan doonaa. beritoolana muuqaal kale ayaan kasoo diyaarin doonaa. haddaba Mirza muxuu samayn doonaa? Cayshaase Marunba inuu jacayl u qaaday mise jacayl uma qaadin waa iskala intii yareed kabeen ayay ahayd. haddaba runtii Mirza hadda Caysha uu iska daayay Fariid iyo Cayshaan way guursadeen sidii aan ku arkaynayba gooskooska koobaad ee xalqada 25aad. sidoo kale Hande ma laga yaabaa inay xabsiga ka soo baxdo mise laga yaabaa in la keeno khaa'imad kale? haddaba maxaa dhici doona haddii xabsiga ka soo bixi weydo? waxaa leeyahay Hande xabsiga ay ku jiri doontaa, inkastoo markii xalqad u dambeysay ay sameysay in xabsiga laga saaray lagu kalfay ama la geeyo meesha dadka dhimirka la geeyo, halkaan ay Hande ku baxsato. Hande waxay damacsan tahay in meeshan laga qaado lana geeyo meesha dadka xanuunsan, meeshana ay ka soo baxsato ama hooyadeeda ay ka haysato. Cadnaan iyo Zumrud Taloma isku soo laaban doonaan sorry ninka Xuseen ah iyo ninka islaantii Zumrud ahayd ma laga yaabaa in isku soo laabtaan, sababtoo ah xalqada u dambeysay Yamaan waxa uu sii daayay odaygii Xuseen ahaa ayuu sii daayay, waa laga yaabaa in ay isku soo laabtaan. haddaba janaalkan bayjoog waxaan u sameynay in aan musalsalada uga hadalno. muuqaalka xigana musalsalka dabcan Kurulus Osman ee uga hadlana fadlan muuqaalka like saar, sidoo kale janaalka subscribe saar maadaama cusub yahay muuqaalkii koobaad ee soo gelinana uu yahay. fadlan janaalka subscribe saar, soona booqo janaalkeena waa janaalkeena bayjoog. haddaba waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan.
mar kale ayaan kuu sheegayaa fadlan janaalka subscribe saar muuqaal kale naag noo saar anigoo saaxiibkiina Khaalid sida caadada waxaan kaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh